Kulankan iyo waliba uu kordhiyay degmada Awdhiigle walibana lanku hadalay sidii oo wada shaqeyn lahaayeen ciidamada xoogga dalka AMISOM iyo maamulka degmada bulshada sidii hal meel ku wada jeesada kooxda argagixisada Al-Shabaab oo saameyn iyo dhibaato ka haysta bulshada Soomaaliyeed. Kulankan iyo waliba ku qayb galay qaybaha shalduwan ee bulshada hana kumid ah odayaalka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, saraakiil ciidanka xoogga dalka iyo AMISOM, xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Awdhiigle Cabdullaahi Usmaan Abuukar iyo taliyaha ururka 66aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Maslax Axmed Xuseen oo ku sugan degmada Awdhiigle iyo waliba bulshada Awdhiigle uu ka amaanay sida dhow oo la shaqeeyaan bulshada maamulsho. Marka waxaad ogaanaysiin marka waxa la idin ka rabaa inaad dadka maamulka degmada Awdhiigle inaad la shaqeysaan iyo midka gobolka dawladda dhan inaad la shaqeysaan la idin ka rabaa. marka aad iyo aad u maasantiin waxaan rabnaa sidii balanteena ahaydba inaynu gacmaha is wada qabsano ka shaqeyno danteena taas oo ah inaynu cadawga ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay aynu hal meel uga soo wada jeesano si aynu u helno nabad inoo qalanta. Xildhibaan Nuur Siidow Baaba oo ku tirsan golaha shacabka iyo waliba bulshada ku bogaadiyay faa'iidada dawladnimada iyo la wada shaqeeyowka ciidansho iyo maamulsho. Hoose oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax waxaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose aan ugu mahadcelinayaa baahidii aan safarkii hore halkaan imaaday aan u jeediyay qayladhaanta aan ka sameeyay jawaabteedii degdeg ahayd ee maanta la soo bixiyay. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax yaa ka maamul ahaan uu sheegay in maamulka uu garab surunya bulshada isla markaas ay tina la daboolo doono baahiyada ku jiraan degmada Awdhiigle. Si ay dadku u helaan daaweyn bilaash dhaqaatiirtii ka shaqeyn lahayd degmadan Awdhiigle way diyaarsan yihiin insha Allah taala waxay la imaan doonaan taliyaha saldhigga iyo ciidankiisa booliska hadda imaan doona ayay la imaan doonaan sidaas la mid ah mashruuca labaad ee loogu talagalay degmo walba oo adowgan shabaab laga xoreeyay in laga hirgaliyo waxay tahay waxbarasho bilaash ah in la geeyo iskuulaadka la مشروع saddexaad ee loogu talagalay wuxuu yahay xarunta maamulka uu ku shaqeynayo ee dadka ay ugu soo hagaagayaan maamulada degmooyinka in loo dhiso. midka afaraad wuxuu yahay nalalka cadceedda ku shaqeeya ee iftiinka magaalada si habeenkii si ganacsiga iyo amniga iyo isku socodka uu u fududaado in laga hirgeliyo magaalada. midka ugu dambeeya shanaad wuxuu yahay saldhigga ciidamada amniga booliska in loo dhiso degmo walba oo gobolkan ku taal. Kaltuuma Mustafa Nuur warbaahinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed.